السلام عليكم weligaa xayawaano aanad arag berigii diinosaaraadka xayawaano jiri jiray oo muuqaalkan ku daawan doontid shimbiro aad iyo aad u waaweyn xayawaano la arkay kuwaas oo aan u ekeen xayawaanada caalamka lagu arkay maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa xayawaanadaas oo aad ula yaabi doontid waxaanadna ku daawan doontaa channelkeena Karama Channel ku soo dhawaada marka ayaanu idin leenahay channelkeena Karama Channel aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sidaad ula socoteen muuqaaladayada xiisaha leh fadlan intaynaan muuqaalada u gelin waxaan idinka codsanaa inaad channelka subscribe saartiin si aad maalin kasta muuqaalo cabsi iyo xiise iyo la yaab leh ula socotiin muuqaalkeenin ugu horeeya YouTube-ka waxaa la soo dhigay sanadii 2011 laakiin waxaa la duubay sanadii 2005 waxaana uu ahaa muuqaalku wiil dhalinyaro ah ayaa soo booqday meelo qubuur ah oo beri hore ugu dambeysay in wax lagu aaso si uu soo booqdo oo kamarada iyo wax uga duubtay muuqaalo ayaa markii dambe ee gurigii tagay waxa uu ogaaday meesha inaanu keligii ku ahayn ee lala joogay waxaasna waynu arki doonaa sida aad u wada jeedaan ama wada arkaysaanba kaamaradu waxa ay qabatay si degdeg ah makhluuqaas oo qaabkiisa iyo sidoo uu samaysan yahay oo la yaab leeyahay laakiin waxa markaa maskaxdaada ku soo dhacaysa su'aal ah markii hore maxaa uu waxan cabsida leh uu arki waayay wiilku isaga ayaa su'aashaas la weydiiyay waxa uu ku jawaabay waayo kalarkiisu ama midabkiisu waxa uu eegyahay midabka qubuurta ama qabriyada sidaas daraadeed waan arki waayay waxaan rajaynayaa commentiga inaad nooga soo qori doontaan fikirkiina waxa uu yahay dalka China sanadii 2017 waxaa ka dhacday dhacdo aad iyo aad u la yaab badan taas oo ah in lagu arkay meelo buur ah kaas oo ka yara fog gobolada dalka China makhluuq ama xayawaan aan hore loo arag shakligiisa iyo qaabkiisa oo kale waad arki kartaan baa laga yaabaa cid hore u aragtay qaabkiisa oo kale ma aysan jirin waxaana lagu faafiyay internetka waxaana daawaday malaayiin qof kana soo falceliyay waxaan xayawaankan waxa uu yahay sida aad wada ogtihiin ama badankiinuba garanaysaan dadka Chinese-ka ah waxa ay aaminsan yihiin ama rumaysan yihiin inuu jiri jiray xayawaan story ah oo tiiniin lagu magacaabo aanu magac kale uma garanayo aan tiiniin ahayn xayawaankan waxaan idin soo saari doonaa shaashada kaas oo laga yaabo badankiinu inaad ku aragteen filimaanta sida filimada kartoonada iyo filimaanta kale waxa ay ku leeyihiin waxa uu eegyahay xayawaankaas waayo sida xayawaankaas oo kale ma uusan lahayn xubno kaliya taa wuxuu leeyahay jidheer xayawaankan hore looguma arag caalamka oo dhan waxaana ay leeyihiin waxa uu lahaa xitaa geesaha lo'da oo kale dadkii ka ag dhawaa bal haddaba fikirkiinu idinka maxaa uu noqonaya xayawaankan lagu faafiyay caalamka sida ay sheegayaan masiniinkaasa mise waa waxyaabo kale oo khiyaali ah bal fikirkiina ka soo dhiibta
waxaynu xalaqaadkeenii hore iyo xalqadan baynu kusoo marnay xayawaano ay kaamiraduhu qabteen oo aan horey loo arag, kuwaas oo dadka qaarna yidhaahdeen oo ku kala duwanaadeen yidhaahdeen waa been, dadka qaarna yidhaahdeen waa xaqiiqo. laakiin muuqaalkan lasoo dhigay sanadii 2011 waa mid ay dadka badankooda yidhaahdeen boqolkiiba boqol waa sax. kaameramanada iyo youtuberska iyo dadka daawaday oo dhan ay yidhaahdeen muuqaalkan wax been ah lagama sheegin. nin ingiriisa ayaa waxa uu galay meelo qadiim ahaa oo hore oo dhulka hoostiisa ah. markuu meel yaroo luuqa galay waxa uu arkay wax ka yaabiyey oo ka nixiyey oo xayawaan hore loo arag ah. waxaad aragteen oo ay kaamiradu qabatay marar badan xayawaankan ama makhluuqan saan u eeg, kaas oo aad iyo aad uga cararayay ninkii kaamirada duubayay si uu meeshan ugu noolaado kana dhuumanayay ninka. sidaad wada arkaysaanba xayawaankan hore looguma arag caalamka, waxaana la yidhi culimada ku takhasustay xayawaanadu ma jiro xayawaan qaabkan leh oo qaabkan u samaysan, sidan dhaqsada ahna orodkan iyo speedkan faraha badanna leh. kuwii kaameramanada ama dadkan wax duuba inta badan waxay yidhaahdeen muuqaalkan ma noqon karo mid la sameeyey ama been laga sheegay. haddaba xayawaanka noocan oo kale ah xayawaan ma ku nool yahay dhulka mise kuma noolaa? badanka dadka waxbaadha ama xayawaanada ka sheekeya waxay yidhaahdeen xayawaan noocan oo kale kuma noolo, laakiin waa la yaab in lagu arko dhulka dushiisa xayawaan noocan oo kale ah. muuqaalkeenan kale waxaad ugu noqon kartaan pagekan ama youtube pagekan aad halkan idinka muuqdo, waxaana lasoo dhigay sanadii 2016 wiil dhalinyaro ah oo ku nool dalka America ama US ee gobolkan idinka muuqdo shaashada ayaa isagoo wax sawiraya ama muuqaalo iska qaadanaya ayaa wax si la yaab leh u arkay shimbir. laakiin markii hore waxa uu qaatay shimbir caadi ah, laakiin markii dambe wuxuu ogaaday inaanu caadi ahayn sababtoo ah speedka uu ku socdo iyo qaabkiisa oo la yaab geliyay wiilkii duubayay wax. Tampoco bien. inkasta oo uu ka fog yahay kaamarada shimbirku, laakiin waxaa la arki karaa qaabkiisa iyo shakliga uu samaysan yahay oo aad iyo aad u ballaaran iyo speedka uu ku soconayo oo aad iyo aad u sareeya oo ka sareeya shimbiraha caadiga ah. waxa uu kaga duwan yahay shimbiraha kale qaabkiisa oo aad u weyn iyo sida uu hawada u goynayo oo aad iyo aad u dheer. tafsiiraadkii dadku waxay ka yiraahdeen way ku kala duwanaayeen, waxayna yiraahdeen waa shimbirihii berigii dinosauradka noolaan jiray waaweynaa. dadka qaarna waxay yiraahdeen waa shimbir sida tiiniinka oo kale. laakiin muuqaalkan ma aha mid lagu kalsoonaan karo oo waa mid la samayn karo. bal idinka maxay idila tahay fikir ahaantiina ka soo warrama. Amare